waxaan ugu mahadcelinayaa soo jeedinta quruxda badan dhammaanna ka qaybgalayaashan waa salaamayaa. Hadalka nuxurkiisa waxaa sheegay dadkii iga horeeyay, laakiin ani waxaan rabaa hal boonti oo keliya inaan ku darsado. Digitaalka waxyaabaha ugu badan ee hadda aan la dagaalamayno ka mid yahay. Soomaaliduna waxaa moodaa waxay yihiin dadka ugu isticmaalka badan social mediaha qaybihiisa kala duwan. Waxa la yiraahdo copyright-ka ama in la koobiyo wax kasta. Last week sheeko waxaa qabsta baraha bulshada. Waxaan ku hadal qabsanayaa hadalku ka dhawaajiyo ganacsiga. Wiil dhalinyaro ah oo rajo lahay lacag 5,700 wuxuu ku dalbaday China kabo inuu dalka keeno. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah marka online-ka waxaa ka dalbanaysa iyo waxa marka lagu keeno waa difference. Waxa u dhaxeeyo farqi weyn u dhaxeeyo. Wiilka waxaa loo keenay kabo oo la isticmaalay. haddana wuxuu baadigooya waxay tahay sharcigii ama hay-addii uu adeegsan lahay inuu raggii waxaan ka iibiyey xaqiis u soo dhici leh. Waxaa aaminsanahay marka shuruucdan oo kale waxay noo sahli karaan inaan xuquuqdeenan u dadno. Sidoo kale waxyaabaha update-ka yimid waxaa ka mid ah WhatsApp-ka. WhatsApp wuxuu soo kordhiyey username in qofku ka fogaado inuu isticmaalo lambarkiisa isagoo la ilaalinaya xogtiisa gaarka. taas beddelkeeda dawladdu waxay samaysay inay durba ay diido ayada iyo dalalka sida Hindiya oo kale. Waxyaabaha loo diidaa waxaa ka mid ah in dadka aan lagu dhicin. Soomaaliyana waa ogsoonnahay ururaha ka jiro waxyaabo badan ka jiraan in xogo badan loo soo dusiyo. Tusaale ahaan oo kale qofkan username ku wato aadan garanaynin nambarkiisa, xogtiisa, sawirkiisa, wixii aadan garanaynin uu kula soo hadlayo, ku handadayo, ku dhici karo maxaa faa'iido meesha ku jirto. Marka anaga waxaan u baahanaa inaan wax badan oo critical aan sameeyno, aan baaritaan sameeyno, aan fikirno, inaan iska ilaalino linkiyada qaldan oo hadda dadkii ugu horeeyay sheegeen data protection ayay muhiim leedahay. Muhiimadeedu waa noo muhiim. Marka intaas ku soo gogweynaa.